subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. subax Arbaca 5 bisha January sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu VOA ku leenahay voasomali.com saacada Afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Caasho Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah 3 caruur ah oo walaalo ah oo ku dhaawacmay bam ay ku ciyaarayeen tuulo ka tirsan gobolka Sool. waxaana loo keenay 3 ciyaala 2 wiil iyo gabadh laga keenay dharkayn geeyo bay ku ciyaarayeen oo gargaraaceen dhaawacyadu waa sahlan yihiin gabadhu baa ah dhaawaca ugu sahlan gacan mayna bili karin. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalka Kenya oo ay ka bilowdeen ololaha doorashada madaxtinimada oo lagu wado in ay dhacdo bisha Agosto ee sanadkan. barnaamijyo mar kale ka dhacay dalka Suudaan iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. kuuriyada waqooyi ayaa samaysay tijaabo gantaal oo muuqda sida ay sheegeen kuuriyada koonfureed iyo Japan maalmo un kadib khudbad uu dhamaadka sanadka hogaamiye Kim Jong Un diiradda ku saaray dhibaatooyinka dhaqaale ee gudaha dalkiisa halkii uu ka ahaan lahaa horumarada xagga military. kuuriyada waqooyi ayaa ugu yaraan hal madfac oo dhinaca badda ah u soo riday xeebteeda bari horaantii Arbacada sida ay taliyaasha guud ee shaqaalaha kuuriyada koonfureed ku sheegeen bayaan ay soo saareen. ilaalada xeebaha Japan ayaa sheegay in laga yaabo in gantaalka la soo riday uu ku lug lahaa gantaal balistiga. faahfaahin dheeri ah lagama hayo oo ay ku jiraan inta gantaal ee la soo riday inta ay socdeen iyo halka ay ku dhaceen. khubarada ayaa sheegaya in mitidiin lala xiriirinayo kooxda argixisada ah ee Daesh ay u muuqdaan inay qorsheynayaan in weeraro kale oo dhimasho badan ay sanadkan ka geystaan dalka Syria. qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada IS ee toddobaadyadii la soo dhaafay oo ay ku jiraan 2 weerar oo ay sheegteen kooxdan oo ka dhana kuwa ay ishayaan ee ku sugan gobolada bariga iyo bartamaha ee dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Syria. galinkii dambe Axadda ayaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Syria la dilay 20 kalena la dhaawacay kadib markii maleeshiyada IS ay weerar ku qaadeen bas ay saarayeen oo marayay waddo weyn oo ku taala gobolka saxaraha ah ee Suuriya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dawladda ee Sana Isniintii. IS oo sidoo kale loo yaqaano ISIS ama Daesh ayaa lagu soo waramayaa in ay madaafiic u adeegsadeen weerarka lagu beegsaday kolonyada ciidamada ka tirsanaa Syria. subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah ay idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. aan ku bilownay 3 caruur ah oo walaalo ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay la qaraxday bam ay ku ciyaarayeen deegaanka la yiraahdo Dharkayn Geeniyo ee gobolka Sool. dhaawacyada caruurta ayaa hadda waxay yaalaan isbitaalka magaalada Laascaanood sida uu ku soo waramaya wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol. dhaawaca caruurtan iyo dhacdadan ayaa waxaa nooga warantay hooyada caruurtani dhashay Koraad Maxamed Axmed. waxaan u dhiibay qado ciyaalka qadaan ariga meel lagu dhexsaday ugu dhiibay
kabacdina waxaan maqlay waxa dhacaya anigoo guriga joogo ay ciyaalkii wax yar gasmi maqnaayeen markaasaan soo tagay xaafad xaqsan qad weyn oo hub dhacaya aad moodisid markaasaan xaafadii la deganayd weeyay aan ugu xaqay ka dhacayaan kabacdina waa la soo waxa lagu yiri ciyaalkii way qaylinayaan yaaceenkan yaacnay baan waxaan ka hortagnay wiil dhaawac oo cararaya naga hor yimi kabacdina ciyaalkii kale aan raadinay oo iyagoo dhiig baxayaan u tagnay meeshii ay kaga qaraxday miinadu adu guriga kama fogeyn saddexda baan dhalay da'dooda intee bay kala jiraan mid waa 7 jir midna waa 9 jir sana 10 jir buu ku jiraa gabadhuna waa 12 jir marka ma waxaad tiin dadka magaalada dharkeen ag degan mise dadka reer miyiga baad ahaydeen reer miyiga ag degan dharkeen baan ahayn xoolo dhaqatada ah iyadoo dhaawac caruurtan lagu daweynayo cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa xaaladooda waxa nooga waramay Dr. Ahmed Cabdirasaaq Axmed oo gacanta ku hayay caruurtaasi miinadu ay kula soo qaraxday deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool. Dikariim waad mahadsantahay inaad nagu soo booqatay cisbitaalka guud ee Laascaanood waxaana loo keenay 3 ciyaala 2 wiil iyo gabadh laga keenay Dharkeengeeyo bay ku ciyaarayeen oo gargaraaceen marka qaraxii bombadaas waxyeelo ka soo gaadhay dhaawacyadu waa sahlan yihiin gabadhu baa dhaawaca ugu sahlan gacan bayna biri kaga jirtaa oo gacanta bidix waxa jira gabadhaas waa 10 jir waxa jira 2 wiil oo midna 9 jir yahay midna 8 jir yahay ciyaalkuna waa wada walaalo ilmaha 8 jirka saga lugta midig bay qaraxu ka saameeyay labada lugtaasna laba jabniin bay laba meelood bay ka jabtay halka wiilka 9 jirkaana uu hal meel oo gacanta bidixa faraha hore uu wax ka qabo oo faraha hore qayb ay jabeen guud ahaan dhaawacoodu waa sahlan yahay waa loo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa in la kabo insha Allah qaraxyada miinada iyo walxaha qarxa ee deegaanka Dharkeengeeyo gobolka Sool maaha markii koobaad ee halkaasi ay ka dhacdo waxaa jiray marar sidan oo kale dad iyo dunya ay saameyn ugu yeelatay sida uu VOA u sheegay Cabdilaahi Faarax Ismaaciil isagoona bulshada kala hadlay dhibaatada ay iska leedahay iyo in laga wacyigeliyo sidaad u sheegtay ma dhibaatadaas waa dhibaato soo noqnoqotay markii ugu horeeyay oo ay dhacdana maaha sanadkiiba aba 2 jeer aba 3 jeer oo dhacdooyin noocaas oo kale dad ku dhinteen waxna ay ku dhaawacmeen xoolona ay ku dhaawacmeen iyo dad iyo dunyaba way dhacdaa marka dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo noqnoqday waana dhibaatooyin aan magaranaysa laga gaashaaman oo magaranaysa dadka aad aan looga digin caruuraha aad ugu sii dhibaato badan iyo dadka maartay maatada iyo waxba garadka marka dhibaatooyinka wax la soo koobi kara maaha waa buuxdaa meesho midhabaarna looba geyn ilaa iyo intii dawladii hore tii Itoobiya hore ah noqotay tii Soomaaliya ay burburtay rinka waxaan ka diranaa in maartay horta dadka wacyigelin badan loo sameeyo waliba dadka deegaanka ku nool maartay meelaha lagu tuhmay oo dhan hooyooyinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada maartay tiimam ma garanaysa wacyigelin badan sameeya in la sameeyo maartay looga digo waayo waxyaalaha dhibaatada ay ku soo noqnoqdo waxa kamid ah in caruurta haday doonaan wixii ay gargaraaci karaan markaana ay ku qarxi karto marka meeshii lagu tuhmayo maartay horta in laga cararo aba la oodo sidii berigii hore ay ahaan jirtay oo kale maartay baan anagu ka codsanana dadka deegaanka Dharkeengeeyo gobolka Sool waxay dhacday xadka Soomaaliya ay la wadaagtay Itoobiya waa xarumo dhanka ciidamada ah oo dawladahaasi ay hore ugu aaseen waxyaabo ay ugu talagaleen inay dhanka dagaalada ay u adeegsadaan dadka deegaanka ayaa dhibaatooyin kala kulma xilliga roobaadka caruuraha iyo haweenka iyo dadkan wacyigelinta haysan inay dhibaato ku yeelataa sidoo kale gaadiidka iyo xoolaha deegaanadaasi ayay dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaadhay waxayna sheegeen dadka deegaanku inay cabsida ugu badan ay qabaan ay tahay dhul masaafadiisu ay dheer tahay in miinadaasi ay ku jirto oo isugu jira dhulka xoolo daaqsinka iyo goobaha ay dadweynuhu ay maraan Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood Kenya dalka Kenya waxaa si dardar leh uga bilowday ololaha doorashada madaxtinimada taasoo lagu wado inay dhacdo bisha Agoosto ee sanadka
musharaxiinta ugu cadcad ee doorashada madaxtinimada Kenya ku tartami doona ayaa kala ah hogaamiyayaasha labada xisbi ee ugu waaweyn dalka Kenya ee kala ah madaxweyne ku-xigeenka dowladda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed. inkastoo doorashada madaxtinimada Kenya ay ka harsan tahay muddo ku siman 8 bilood, haddana waxaa guud ahaan dalka laga dareemayaa ololaha doorashada iyo xamaasadda la xiriirta doorashada. qaar ka mid ah gobolada dalka waxaa kol hore si gooni ah u gaaray madaxda labada xisbi ee ugu waaweyn Kenya ee kala ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo hogaamiya xisbiga UDA iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo isna hogaaminaya xisbiga ODM. tartanka ugu adag ee doorashada dalka ayaa la filayaa in labadan nin uu dhex mari doono. Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa gobolka Waqooyi Bari ayaa la kala safan labada xisbi, waxaana labadan hogaamiye ay bilihii lasoo dhaafay safarro ay ku ololeynayaan doorashadoodu ay ku tageen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo aaminsan in sanadihii lasoo dhaafay gobolada Soomaalida aad loo gacan bidixeeyay marka loo eego dhanka bajetka dowladda ee gobolada siiso, ayaa hadda ku baaqaya in Soomaalida Kenya looga baahan yahay inay doortaan hogaamiye ay la xisaabtami karaan. Maxamed Guuleed Simba waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya, horena u soo noqday gudoomiyihii hore ee ismaamulka Isiolo. shacabkii marka arrintaas aad ay u kala qaybsan yihiin. annaga markaa Soomaali ahaan xagee inoo wanaagsan oo aan fiirin lahayn waxay ku xiran tahay danteena iyo guud ahaan siday ay maaragtay annaga faa'iido meesha noogu jirto. hadda sanadihii lasoo dhaafay waxaan aragnay waxyaalo badan oo annaga Soomaali ahaan ama dadka waqooyiga waddankan ku nool oo gacan bidixeynaya si maaragtay arrimaha khayraadka loo qaybsado ama lacagaha dowladda ay siiso gobolada. marka doorashadan soo socota arrimahaas ayaa qayb weyn ka qaadan doona inaan fiirino yani musharaxa annaga arrimahaas naga dabooli doona iyo waxyaalihii kale oo xuquuqdeennii fiirinaya. tusaale ahaan dhalinyarteenu badanaa waxaa lagu dhibaa sharciyeenta ama inay goostaan aqoonsiga. waxyaalo kaloo fara badan oo ummadda lagu ciqaabana waa jirtaa, sida dhalinyartaas ka dhunto oo maaragtay meelaha lagu bahdilo oo la dilo markii dambena la waayo oo loo yaqaano extrajudicial killing. marka waxaasoo dhan ba annaga noo ah inaan ka fiirino musharaxa arrintaas mowqifku ka qabo iyo sida uu xalin lahaa waxyaalaha annaga Soomaali ahaan ama dadka ku nool waqooyiga waddankan loo xalin lahaa waxyaalahay maaragtay u tabanayaan. marka waxaan anigu markaa Soomaalida ku dhihi lahaa inay isu diyaariyaan doorashada, ay isdiiwaangeliyaan, markii waqtiga la gaarana ay ka qayb qaataan si ay maaragtay codkooda u dhigaan oo ka bacdina ay u doortaan maaragtay qofkii annaga ay dan ugu jirto. Soomaalida Kenya ee kaararka codaynta haysata ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilayaa in maalinka doorashada aysan imaanin goobaha codbixinta amaba aysan isku diiwaan gelinin inay codeeyaan. Anas Maxamed Cabdirasaaq oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in arrintaasi ay dhibaato ku tahay mustaqbalka Soomaalida Kenya, isla markaana loo baahan yahay in Soomaalida Kenya ay isbedel ku sameeyaan tilaabadaasi. codbixinta markii laga hadlo dadka Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dadka waddanka Kenya tirada ku leh, laakiin markay timaado xagga codbixinta inaysan isdiiwaan gelinin marka koobaad. marka labaadna hadday isdiiwaan geliyaan ay codka maalinka la ridayo aysan isu soo bixin oo aysan doorashada ka qayb gelin. kulleyba sababaha jiro caajis iyo waxyaabo noocaas unbaa lagu tilmaamaa. marka waxaan ugu baaqi lahaa dadka Soomaaliyeed in ummadaha tashanaya ee dalkani Kenya wax qaybsanaya inaynan ka harin, isu soo baxno codka kaarka codbixinta. hadda saad ogtahay bisha koowaad waxaa bilaaban doontaa dhexdeeda waxaa bilaaban doontaa diiwaangelinta codbixiyaasha in lasu soo baxo kuuraha la qaato, khaasatan Soomaalida dalkan magaalada Nairobi ee caasimada ku nool oon ognahay in hanti badan iyo waxyaabo fara badan oo dana ah ay nooga xiran yihiin inay isu soo baxaan, kuuraha qaataan, codkooda ridaan. marka iyada waxaad noqonaysaa qof saameyn ku leh. waxaa jirta maahmaah la isticmaali jiray ama oraah ay isticmaali jireen guddiga doorashada kankii ka horeeyay. waxay dhihi jireen bad leaders, dadkan hogaamiyaasha xunxun waxaa doortaan dad xun oonan codkooda ridin. maxaa yeelay dad badan waxaad arkay ku dhahayo maxaan u soo bixi
siyaasiyiintu waa kuwii, madaxdu waa kuwii, wax isbedel ah ay keenayaan ma jirto. adigu mar walba waxaad ogaataa ama waxaa inoo haboon inaynan quusanin. dadkan madaxda ah aan ka calacalaynana inta badan waxaa soo doortaan dad sidan oo kale intay quusteen un aanan soo bixin. marka haddii aan isu soo baxno dad tashtay oo madax iyaga marka iyada ugu haboon doortay un baynu noqon. marka inaynu kuuraha qaadano. labada nin ee kala hogaaminaya labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada Kenya ee Ruto iyo Raila ayaa la aaminsan yahay in isku dhacooda dhanka siyaasadda uu soo bilowday doorashadii ugu dambeysay ee 2017 ka dhacday dalka Kenya. siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ayaa u kala qaybsamay labada xisbi ee ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. deegaanada Soomaalida ayaana ka mid ah meelaha laga dareemayo xamaasadda iyo ololaha la xiriirta doorashada madaxtinimada Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. kumanaan ruux ayaa mar kale shalay isugu soo baxay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan kuwaasoo dhigayay banaanbax ay uga soo horjeedaan xukunka militariga sidoo ku soo waramaya wariyaha VOA-da ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni. ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasta rabarka u adeegsaday banaanbaxyaasha kadib markii ay isugu soo baxeen meel u dhow xarunta madaxtooyada ee bartamaha magaalada Khartoum. warbaahinta Suudaan ayaa xaqiijisay in ciidamada amniga si xoog ah ay u kala eryeen boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha soo gaaray dhulka ku xeeran madaxtooyada waddankaasi. goobjoogayaal ku sugan magaalada Khartoum ayaa sheegay in la xiray wadooyinka soo gala xarunta dhexe ciidamada militariga oo ku yaala bartamaha caasimadda halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan militariga iyo kuwa amniga. mudaharaadyadu kuma koobna caasimadda keliya balse waxa ay ku fideen meelo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sida magaalada Port Sudan oo ah magaalada ugu weyn bariga dalkaasi oo ku taala badda Casa. magaalada Madani ee caasimadda gobolka Gaziira oo 186 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ayaa waxaa sidoo kale isugu soo baxay kumanaan dibadbaxyaal ah oo sitay calanka Suudaan iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah ciidamada. dibadbaxyaasha reer Suudaan oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ee Khartoum iyo qaybo ka mid ah gobolada waddankaasi ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah ciidamada militariga. dibadbaxyadani ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaaraha rayidka ah ee dalkaasi Cabdalla Hamdoog kaasoo cadaadis kaga yimid kacdoon wadayaasha Suudaan oo si weyn u diidana heshiiska uu la galay militariga. arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyay dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 50 qof oo dad rayid ah kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada iyo dibadbaxyaasha. dhinaca kale ururada jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay oo ka hadlay xaaladda Suudaan ayaa ku baaqay in la ilaaliyo deganaanshaha iyo in xiisada lagu dhameeyo wada hadal. xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Ahmed Abulghayd ayaa sheegay in uu ixtiraamayo go'aanka ra'iisul wasaare Cabdalla Hamdoog ee iscasilay balse waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo guulaha muhiimka ah ee la gaaray 2 sano ee la soo dhaafay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa muujiyay sida uu ugu xun yahay xiisada Suudaan ka taagan oo lagu dhameyn waayay buu yiri xal siyaasadeed. waxa uuna ka digay in xiisada dalkaasi ay gaarto meel halis ah. Suudaan ayaa 2 sano ee ugu dambeysay waxaa ka jiray dowlad rayid ah si dalka loogu diyaariyo doorashooyin guud taasoo si weyn ay u soo dhaweeyeen dowladaha reer galbeedka iyo dalalka Carabta. bishii Oktoobar ayay ahayd markii taliyaha guud ee militariga dalkaasi Generaal Abdul Fattah al-Burhan uu casilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi isla markaasina waxa uu laalay dastuurka qabyada ahaa ee dalkaasi taasoo si weyn ay u diideen dadka reer Suudaan.
bishii Nofeembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dib loo soo celiyay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug kadib markii heshiis uu la galay militariga dalkaasi balse waxaa ka soo horjeestay kacdoon wadayaasha Suudaan axsaabta siyaasadda iyo ururada bulshada ee wadankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay in uu bilaabayo qaadashada tallaalka afraad ee COVID-19 kaasoo ay dalban karaan dadka da'da ah ee tallaalka saddexaad qaatay 3 bil ka hor laakiin dad badan ayaa su'aalo gelinaya in tallaalka afraad uu noqon doono kan ugu dambeeya ee lagula dagaalamayo COVID-19 iyo in kale warbixintan waxa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji halka afraad ee COVID-19 waa mid ku cusub inta badan dhigaha dadka reer Ontario sababtoo ah kan saddexaad ayaysan weli qaadan dadka badankood madaxa caafimaadka ee gobolka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in tallaalkan afraad uu yahay mid lagu xoojinayo difaaca dadka da'da ah iyo kuwa xanuunada raagay qaba ee u nugul cudurka tallaalka afraad ayay dadka da'da ah ballansan karaan kadib marka ay 3 bil ka soo wareegato markii ay qaateen kan saddexaad dad badan ayaa qaba inay u muuqato in tirada tallaalka COVID-19 ee dadka lagula talinayo inay qaataan ay noqon doonto mid marba marka ka dambeysa sii kordhaysa waxaa sidaasi qaba ugaas Cabdiqaadir Tarambi oo kamid ah odayaasha Soomaalida ee degan magaalada Toronto Xuseen waa maasantahay waxaa hore loo qaatay 2 tallaal marka waxaa la yiri waxaa loo baahan yahay mid saddexaad oo la yiraahdo booster shot-kii haddana la qaatay haddana waxaa la yiri waxaa loo baahan yahay afraad marka waxaa laga yaabaaba in intaas lagu ekaan doonin in la sii wado oo la yiraahdo shanaad iyo ajirayo in la yiraahdo oo la qaadanayo kuleeto sidee noqon doonto ma naqaano laakiin waxaa laga yaabaa in flu shot qabal loo qaato maartay tallaalka inkastoo dadka qaar aysan jeclaysan tirada tallaalka la qaadanayo ay sii kordhaya haddana waxaa jira dad badan oo qaba in talooyinka dawladdu la raaco maadaama aysan ka suuroobin inay dadka kula taliso qaadashada tallaal aysan soo hubinin waxaan u arkaa tallaalka wax aad u fiican inuu yahay hadduuna ficliya dowladda Canada looma keenteen jaariyadda waxaan kula talinayaa inay qaataan tallaalka waayo dowladda Canada yaa wax aanan noogu jirin maslaxa maaba ay keenayso annaga Canadian-aan nahay wax allaala waxay soo goyso dowladdayna waa qabnaa baxda caafimaadka ayaa qaba in daawo kasta ay yeelan karto waxyeelo muddo koobana balse faa'iidadu ay ka badan tahay waxyeelada waatan Safiya Caddo oo ah kalkaaliso la shaqeysa dadka da'da ah oo xilli sii horeysay iga warramaysay arrinkan tallaalka horta waxa Soomaalida ay ka qabaan saan qabo waxa waaye sida adduunyada kale ay ka wada qabaan oo ah dhibaatada lagala kulmi karo tallaalka uu keeni karo daawo walba ee dunida taalo haba yiraadeen haba noqdo maxay ahayd adbal ama Tylenol waxay leeyihiin wax uun ku saabsan oo dhib ah oo cagsigii daawadii wixii loogu talagalay inay faa'iidadii ay keento maxay ahayd toole aanan ahayn marka faa'iidadeeda miyaa badan mise waxaa badan dhibaatadeeda markii la iswareysto waxaan aragnay ee muuqata ee scientific adduunyada oo dhanba u wada muuqatay waxa waaye faa'iidadeeda badan dhanka kale dadka la shaqeeya dadka da'da ah iyo kuwa booqashada ugu tagaya ayaa lagu waajibiyey qaadashada tallaalka saddexaad ee xoojinta si loo hubiyo badqabka dadka u nugul xanuunka ee ay la kulmayaan Xuseen Nuur Xaaji VOA Toronto aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada mar kale haddaan idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weynaa khubarada ayaa sheegay in mitidiin lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ay u muuqdaan in ay qorsheynayaan in ay weeraro kale oo dhimasho badan ay sanadkan ka geystaan dalka Syria qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada IS ee toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan 2 weerar oo ay ku sheegteen kooxdan oo ka dhana kuwa iyagu ishayaan ee ku sugan gobolada bariga iyo bartamaha ee dalka ay dagaaladu afeeyeen kuuriyada waqooyina waxay samaysay tijaabo gantaal oo muuqda sida ay arbacadii sheegeen kuuriyada koonfureed iyo dalka Japan maalmoon kadib khudbad uu dhammaadka sanadka hogaamiye Kim Jong Un diiradda ku saaray dhibaatooyin dhaqaale ee gudaha dalkiisa ka taagan kuuriyada waqooyi ayaa ugu yaraan hal madfac oo dhinaca badda ah u soo riday xeebteeda bari horaantii arbacada sida ay
taliyaasha guud ee shaqaalaha kuuriyada koofureed ku sheegeen bayaan ay soo saareen. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestaan kudhageedu yahay hambore libaax bay soo wadaa jacaylkuna hadduu jiro way hayaa codadka hibe maxamed iyo bashiir haadi. hambore libaax bay soo wadaa jacaylkuna hadduu jiro way hayaa uhoreeyo hedu jare uhoreeyo hedu jare hedu jaro mahadhayo imu helaa mahilaye uhoreeyo hedu jare uhoreeyo hedu jare hedu jaro mahadhayo imu helaa mahilaye qurux lagu hagoogyehe sida kayga loo hubo ma lagu hayaaye sida kayga loo hubo ma lagu hayaaye hadal waa murtiye hadal waa murtiye codadka hibe maxamed iyo bashiir haddii heesta wadajirka ah ugu wada luuqaynayaan ee hamboro ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga v o dhinac isku dibridka idaacadda waxaa lahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo hamboro libaax bay soo wadaa haadkuna hilbahaw halaftada قلوع لقى هوكيه هادي يديه سولي خاي قلوع لقى هوكيه هادي هنكي قاطو هيك هنكي قاطو هيك مدن هو سوي هوري ماي وقيدي مدن هو سوي هوري ماي وقيدي هذا الوقت